Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawadayaal. Waxaan rajaynaynaa fiicantiin. Salaan kadib waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo dhowr waxyaabood ay tahay inaad ku baraarugsanaato haddii aad rabto inaad safarto ama tahriibto. Mawduucan idinkula wadaagi doonaa. Inta badan dadku waa lagala dardaarmaa, waa laga waaniyaa, waa lagu daalay tahriibin ha safrin. Wax u safarin mayno. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax ku saabsan qofka hadduu rabo inuu tahriibo u safro, maxay tahay waxyaabo ay muhiim u tahay inuu ku baraarugsanaado, ay tahay maxay tahay wax uu u baahan yahay oo muhiim u ah inuu ku xisaabta kusii darsado ama ku baraarugsanaado. Waxaasaan rabaa inaan kala hadlo. Inta badan ku saabsan mawduucayga waana iyo wacdi, maadaama horena loogu daalay inaan ugu wareeray tahriibina, ha bixina, ha soconina, ha jooga. Marka maanta waan rabaa insha Allah inaan idin kala hadlo wax ku saabsan ha bixina, ha safrina, ha soconina. Waxaan idin leeyahay aniga socda haddaad rabtaan, ma fahanti. Waxa waaye Soomaalidu waxay tiraahdaa inay meel u caddahay waxaa la yidhi meel ka madow. Marka qofka haddii uu go'aansado inuu meel aado, inta badan ma fududa, mana sahlana in laga waaniyo, laga wacdiyo, si walba loogu daalay, ma fahanti. Marka waa kaasaa mawduucaas intaas uga gudbaya. Marka waxaan rabaa inaan ka hadlo oo keliya dhowr waxyaabood ay tahay inaad ku baraarugsanato. Maxay yihiin waxaas? Waxaa la rabaa number one, shayga ugu horeeya ugu muhiimsan waxay tahay, nambarka koowaad aan ka dhigi doono waxay tahay inta badan dadka safra ama haddii ay ku tusaale inta badan waxaan soo qaadan doonaa wadamada North Africa. Inta badan looga gudbo badan Mediterranean-ka ee Yurub dariska la ah. Waxyaabaha ugu badan ee muhiimka ah inay ku baraarugsanaadaan dadku waxay tahay caqabad ahaana soo wajihi doona. Waxaa waaye nambarka koowaad oo aan aniga ila tahay in nambar kow ay tahay caqabada luqadda. Inta badan waqooyiga Afrika waxaa la isku dhahaa wadamadan Liibiya, Suudaan kuma jirto. Liibiya iyo haddii ay ku sameeyeen Algeria, Tunisia ama Tunis, Morocco ama Maghrib saa u taqaanid, la isku dhahaa wadamada North Africa ilaa Mauritania gaarsiiyey. Ma ogi, mana hubo inay West Africa tirsan tahay in kale. Wadamadaas intooda badan laba luqadood looga hadlaa. Luqadda koowaad ee tahay inaad ku baraarugsanato waxay tahay luqadda Carabiga oo inta badan ay ku hadlaan, inkastoo Algeria wadan Caraba dadka ay ku qiyaasaan inuu yahay tahayna dadka degan dabcan markaas loo eego inay Carab yihiin asalkooda ama lagu tiriyo. Laakiin luqadda looga hadla inteeda badan Carabi ma ahan, laakiin intooda badan af Carabi waa ku hadlaan. Number one waxaa laga rabaa inaad ku baraarugsantahay inta badan luqadda Carabiga fahmaysid. Number labo waxaa waaye Faransiiska inta badan looga hadlaa wadanka Algeria iyo kuwa la halmaala. Inta badan wadamada dabcan marka u socotay Algeria ama u socotay Morocco ma bidaysid dhulka haddaad ku soconayso ku safraysid, waa khasab inaad ku safarto wadamo Afrikaana. Marka wadamada Carabta haddii xataa dabcan Algeria laftirkeeda af Carabi asaga jibsan karto, laakiin wadamo waxaa jiro oo dhowr wadan ah oo kasoo sokaya haddii aad dhulka ku safrayso ay tahay inaad ku baraarugsanato. Wadamadaas waxaa kamid ah Mali iyo Burkina Faso iyo yar oo dhan ilaa Niger, meelahaas haddii aad marayso inta badan, iyo Algeria bay wadamadan intooda badan af Carabi marka laga tago luqadda labaad ay u tahay afka Faransiiska. Marka haddii aad Soomaaliya joogtid ama aad Kenya joogtid aad rabto inaad safarto, waa inaad ku xisaabta kusii darsataa inaad luqadda Faransiiska wax una ka taqaana. Mon ami inaad taqaana laga rabaa, bombino iyo waxaas lamid ah. Intaas waa kaftan. Marka dhibka ugu weyn ee soo wajaha dadka safarka ah waa luqadda. Qodobka labaad waxaan ka dhigi doonaa insha Allah qodobkan ku saabsan nidaamka maaliyadda iyo nidaam dhaqaaleedka oo ay tahay inaad sidoo kale ku baraarugsanato. Inta badan wadamadan caqabada dadka qabsato waxaa kamid ah in dhibka caqabada dhaqaalaha inay qabsato, oo maadaama aadan luqadii aqoonin, sida qodobkii hore aan kasoo hadalnay, inta badan lagu waafsan karo dhanka dhaqaalaha iyo maaliyadda. Waxaana looga bixi karaa inaad soo qaadato laba kaar oo Master Card iyo Visa Card ah. Waa muhiim jiddan labadooda inaad isku wadato, waa muhiim. Ma kala qaadayo, mana dhahayo hal xabaa muhiim ah, labadooda waa muhiim. Maxaa yeelay ATM-yada qaar kuma shaqeeyaan Master, midna kuma shaqeeya muxuu ahaay kan kale Visa Card-ka. Marka labadooda inaad isku wadato, mid hadaa la weyso kan kale aad ka heli karto waa muhiim. Taas waaye oo waxay arrintaas kaa caawinaysaa inaad xor ahaato. Inta badan caqabada dadka qabsato waxaa kamid ah dadka mukhalasiinta markaa u imaado oo aad meel lacag kusoo darsato aanad aqoonin, waa ku qasbanta inaad hoos fadhiso oo iyaga aad lacagta kusoo darsato, kadibna iyaga ay sidii rabaan kuula dhaqmaan, lacagtana kuuga qaaliyan haddii rabaan. Laakiin financially free markaa tahay oo lacagtada adiga aad soo baxsan kartid oo meesha aad mari kartid, haddii ay ku sameeyeen waa yaraanaysaa caqabadii cadaadiska lagu saari karo. Marka qofka waa la gorgortami kartaa, baahi badan uma qabsid. Maxaa yeelay intaa lacag soo qaadato baad hadhowna daarata baska rabto raaci kartaa. Marka waa muhiim jiddan inaad ku baraarugsan tahay arrintaas oo ah inaad haddii ay ku sameeyeen inaad og tahay oo aad ku tashato
xisaabtan aad ku darsato inay ku qabsan doonto caqabad dhaqaale loogana bixi karo mastercard iyo fiiska inaad wadato. Qodobka labaad waxay tahay inaad ku baraarugsan tahay waxaa waaye maadaama wadamadan inta badan dadka qaada caqabad luqad ay qabsato, caqabad maaliyadeed ay qabsato, waa dhibka ku saabsan mukhalasiinta hadda aan ka soo hadlay. Waxaa looga bixi karaa inaad feejigan tahay, waxaa looga bixi karaa inaad free tahay, waxaa looga bixi karaa inaad wax garad tahay, waxaa looga bixi karaa inta badan wadamada ugu safarka badan ee ugu khatarsan ee dhulka mara ee caqligooda aadka u shaqeeya waa dadka af carabiga ku hadla, Afrikaanka af carabiga ku hadla. Waa number one Suudaan iyo Jaad dadka degan inta badan af carabiga ku hadlaan. Dadka ugu khatarsan ee safra caqliga ugu tirada badan leh safarka keena waa iyaga. Marka haddii ay ku sumideen inaa marka maadaama dhaqaalaha horta wax walba ay free ku yihiin, marka waxay kugu caawinaysaa inaa indhahaaga furan yihiin, jihada laga soo gali karo aad taqaano, luqadii aad taqaano, dhaqaalihii aad wadato. Waxaa kuu weheliyay inaad feejigan tahay, jihada laga soo gali karana garan karto, dad fiican inaad la safri karto oo aan kuu tilmaamay haddaba Jaad iyo inaad la safarto markaasi Suudaan. Maadaama dad ahaan Soomaalidan ay aad u jecel yihiin dhagartooda iyo khiyaanadoodana ay yartahay. Dadka inta badan Faransiis ku hadla way xasidiin haddii yihiin Mali, haddii yihiin Niger, haddii yihiin Burkina Faso iyo waxa kaloo gaalada ah. Niger iyo hadda mathalan iyo Mali dad muslimiin ah waaye, laakiin si markaad moodo waxaa moodaa dad aad si xun u khalafsan waaye. Marka caqabada weyn ee ka qabsan doonto waxaa waaye inaad luqadooda aqoonin. Haddaa muslim tahay xataa waxay ku tari mayaan because islaamnimadooda waxay ku tari mayso maxaa yeelay isku af ma tihiin, isku luqad ma tihiin. Af carabi ma yaqaanaan, Faransiis ay kula hadlaan, Faransiiska aqoonin waxay ku garanayaan adiga kusoo duuli inaad tahay. Marka inta badan wax naxariista kama helaysid. Laakiin Suudaan xataa haddaan luqadeeda aqoonin dadku way u arxantaa. Inta badan Soomaalida way jecel yihiin, aad ay u jecel yihiin, mana xumeeyaan. Marka haddaa safrayso caqligaaga ha shaqeeyo, inta badan la safar, Suudaanta la safar, Jaadka la safar. Qodobka ugu dambeeya aan rabo inaan kusoo ganaanado wuxuu noqon karaa aragti guud oo waxaa jirta Soomaalida laga aaminsan yahay oo ah inay lacag haystaan, in dhaqaale haystaan. Marka si loo fiiriyo Afrikaanka waa ka qurxoonnahay, waa ka labis fiicannahay, dabcan waa ku ammaanaya Soomaalidu. Aad aan timaha u jarannaa, waa is qurxinaa maasha Allah. Marka waddankeena joogna wadamada kale aan tahriibka ku ahaynba arrintaas waa arrin fiican. Laakiin markaa safar tahay oo tahriib tahay, haddii lagaa dareemo inaad labis qurxoon tahay, boorso weyn aad sidato, inaa markaas lagu hunguriyeyn karo, laguna malayn karo qof dhaqaale haysta oo sidoo kale luqadina aqoonin, haddii Ilaahay kuu samadiidin sidoo kale nidaamka maaliyadda aysan u fadhinin, dhib badan baa kaa soo wajihi kara markaas. Marka waa inaad ku baraarugsan tahay inaadan boorso weyn isku qaadan, inaadan si qurxoon u labisan, inaad dhexdhexaad ahaataa lagaa rabo. Dharka caadiga ee xamaalka inaad sidato, dhar yar oo khafiif ah oo fudud inaad sidato waaye. Qodobka ugu dambeeya aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo waxaa waaye waa inaad sidataa baasaboor. Dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan isdhahaan wadana tahriib ama dhulkaana mar raba maxaa uga baahan yahay baasaboor. No, waa u baahan tahay baasaboor. Waxaa uga baahan tahay wadamada marka imaado waxyaabaha ugu weyn ee ku qabsan doona waxaa kamid ah wadamadan inta badan North Africa tareenaa ka jiro. Tareenadaas waxaa lagu raacaa documenti lagu weydiinaa baasaboorkaaga baa lagu leeyahay haddii la rabo ticket in lagu jaro. Qofka marka u tagto xafiiska oo tareen ticket aan u baahanahay marka tira baasaboorkaaga baa lagu leeyahay. Marka dad caadi oo shacab maadaama ay yihiin inta badan dowladda ay ka baqayaan, inta badan ma tixgeliyaan fiisa inuu saaray in kala shughul laguma qabsan karo. Laakiin waxaa lagu qabsan karaa qofkan ID maadaama uusan lahayn ama baasaboor uusan wadanin inay u jaraan waa lagu qabsan karaa markaas ticketkaas. Marka waxay sameeyaan waxay ku leeyihiin baasaboorkaaga keen kadib aan kuu jaro ay ku leeyihiin. Si kale lagama yaabo inay kugu jaraan. Marka baasaboorkaas wuxuu kaa caawinayaa inaad tareenada ku raacdo, wuxuu kaa caawinayaa inaad guri ku kiraysato, wuxuu kaa caawinayaa basaska inaad ku raacdo. Inta badan basaska wadamada North Africa ma ahan basaskii Soomaaliya ka jira BL iyo Raraa kale maaha. Waa basas waaweyn oo caalami ah sida diyaaradaha oo kale qurux badan oo VIP waaye. Ticket loo jartaa waxay ka baxaan meel aad moodo inay airport tahay sida dekad oo kale u nidaamsan ay ka baxaan. Marka waa wax caalami ah waaye nidaamka ay u shaqeeyaan. Basaskaas marka inta badan waxaa lagu raacaa baasaboor. Marka waa kuu muhiim inaad wadato. Marka si guud aan soo koobno inaad iska ilaaliso caqabada luqadda isu diyaari oo muhiim ay tahay. Haddaan isku soo ganaano guntii iyo gabagabadii mawduuceena waxaan kusoo gabagabeynaynaa haddaan soo aruuriyo hadalkeena. Number one inaad ku baraarugsan tahay caqabada luqadda, caqabada maaliyadda, inaad feejigan tahay, inaad baasaboor sidato, inaad labiska iyo qurxinta iyo dharka iyo boorsada inaad iska ilaaliso, inaad la safarto dad fiican. aan kusoo gabagabeynaa mawduucayga insha Allahu tacaala. Intaasaan kusoo gabagabeynaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.